aan ku bilaabo jigjiga ayaa tan iyo saaka degan kadib markii shalay ay hareeyeen qasyo jahawareer iyo boob sababay in magaaladu ay gacanta ka baxdo balse rabshadahaasi ayaa maanta ka qarxay magaalada Dirdhabe waxaana jira jahawareer u muuqda sidii kii shalay ka dhacay magaalada Jigjiga warar iskhilaafsan ayaana ka soo baxaya xaaladda magaaladaasi haddaba sida ay maanta xaaladdu tahay Dirdhabe waxaa inoo haya Farax Lamaane oo ila fadhiya waa sidaad u sheegtay wararka ka imaanaya magaalada Dirdhabe ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa ay sheegayaan in rabshado la mid ah kuwa shalay ka dhacay Jigjiga ay halka ka qarxeen xaafadda la yiraahdo Ashawa ayaa waxa la sheegay in rabshaduhu ay ka bilowdeen waxaana irtaha loo laabay meheradaha ku yaala suuq halka ku yaala oo la yiraahdo suuqa Ashawa rabshadahaas oo u dhaxeeya dhalinyaro Soomaali ay qaar ka soo jeeda qowmiyadaha kale ee Itoobiya waxa la sheegay inay ku fideen meelo kale oo ay ka mid tahay xaafad la yiraahdo xaafad Ciise xaalad fawda ah iyo jahawareer ayaa waxa laga soo sheegayaa in ay magaalada Dirdhabe ku jirto iyadoo hadba dhinac la isu eriyanayo dhalinyarada rabshadaha wada ayaa waxay ku weysan yihiin kurar iyo baandado iyo faasas iyo midiyo iyo wixii la mid ah dad goobjoogayaal waxa BBC ay u sheegeen in boolis ka tirsan federaalka Itoobiya ay magaalada soo galeen si ay u kala dhex galaan oo ay u kala eriyaan dadka rabshadaha wada gaadiidka caadiga ah